حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال در المعالي ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. إخوة الكرام aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka kasoo qaybgasheen inaad mowduucan wax ka dhagaysataan waqtiga oo gaaban dartiis iyo mowduuca aad u ballaaran waxaan isku dayaynaa inaan intii tabarteena ah aan mowduucaas furfurno. mowduucu muhiimad aad u weyn buu leeyahay. muhiimadiisa waxaa ka mid ah xilligeedna hadda lagu jiro bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed af Soomaaliya ku hadasha qayb ka mid ah jinsiga rag iyo dumar qayb ka mid ah dumara ayaa waxay u sharaxan yihiin inay madax ka noqdaan dalka. taasi sharcigu ma siinaya shariicada diinta islaamku ma siinaysa gabadha inay madax ka noqoto shacab muslima iyo dal muslima. mas'aladaas mas'alo khilaafiyaho aimada muslimiinta iyo fuqahaa muslimiin ay ku kala tageen miyaa mas'aladani waxyaalaha xoojinaya gabdhaha waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid ah fikratul musaawaa sinaan ay sinaadaan labada jinsi. fikradda markaa fikratul musaawaa ma aha fikrad markii la dhaqan geliyo in la damcaan la dhaqan geliyo dhaqan gelis. shariicada islaamkuna wax la yiraahdo musaawaa ay taqaan ma jirto. wax sinaan la yiraahdo guud oo meel kasta laga sameeyo ma jirto. hadda rag ma yahay ma wada sinna isku aqli lama wada aha isku aqoon isku macrifo lama aha isku karti lama aha isku dadnimo lama aha. wax la yiraahdo musaawaad sinaan oo guud adduunka kama jirto meel ay ka hirgelisna ma jirto. waa been la soo dhoobay. fikraddaas marka falsafo waxa weeye dadka in badan lagu qanciyo
innaga marka haddaan shacab muslima nahay waxaan leenahay waxaan u laabanno shareecada diinta islaamka ah shareecada diinta islaamkuna rag iyo dumar wax ka dhaxeeya jira waxay xaq u leeyihiin gooni raguna waa jira waxay dumarku xaq u leeyihiin waa jira marka in la isku dara ma aha taasina haweennimadkii ee haweenka xuquuqdooda kuma tumanayso ilaa waxaa jirta fikrad soo dhaca ikhtisaas oo nidaamka maamulka ka mid ah ikhtisaasku macnaha waxa weeye hadduu wasiirku wasiir yahay ama madaxweynuhu madaxweyne yahay waxaa jira qodobo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 uu leeyahay uusan u gudbi karin suldada iyo awoodda uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu على هذا الأساس إن صح التعبير على هذا الأساس هوينكو واحد قوني إليهن استرهقوا كحد قد بكرين رقونا وحي إليه واحد قوني هوينكو كحد قد بكرين أرنت مركة دولة إما ضح لغا نقضاء يوحي لمدى دولة إسلام يوحي لمدى إما ضح لغا نقضاء حق دمر كلية هي معه taasina macnaheedu maaha ma awoodaan wax ma hogaamin kartaan wax ma qaban kartaan maaha marka horeba ilaahay baan ku siinay subhanahu wa ta'ala xukm ilaahay ku siiyay ma aha maxaad raadin kartaa wuxuu ilaahay ku siiyay raadin kartaa laakiin waxa ilaahay ku siiyay ma raadin kartid aayadan quraanka hadan akhrinay oo ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض رجوا إيجا لا قوامنمتك حق قوامنمتك علماء waxay ku fasireen السيادة والقيادة منان يهوغان haweenka waxa ku leh raga ku leh hogaanka in wax la hogaamiyo iyo mudnaanta raga waxay ku leeyihiin haweenka waa xaq marka ilaahay siiyay raga macnaheeduna ma aha haweenku inay ka xun yihiin raga taasina ma jirto ee waxa way ulajeedku ragu markuu rag yahay dumarkuna dumar yihiin waxa mudnaanta le raga dumarka ayaa mudnaan lagu leeyahay hogaan lagu leeyahay ayada marka culimadu waxay soo dalisadeen inaysan haweenku madax ka noqon karin dawlad islaama al-imam al-udma ama wixii ka hooseeyo sida inay ra'iisul wasaare noqoto ama ay noqoto wasiiru difaac ama madaxweynuhu uu sameeyo tafwiid uu wakaasho haweenay uu xilkiisa u dhiibo inta shariicada diinta islaamka ma banaana ala hada ala asaas ayadan quraanka u daliila culimo saas soo qaateen waxa jira marka dad badan oo shubahaad kiciya waxa uu eegan xaq ahayn si uga gudbaan uga lugta ka mariyaan shariicada diinta islaamka waxay yiraahdeen aayadani waxay ka waramaysaa qoliyahaas dhahaya aayadan waxay ka waramaysaa xuquuqda qoysnimo ayay rag leeyihiin oo haweenku leeyihiin ee kama waramaysa aayadu inaysan haweenaydu madax noqon karin dawlad islaama ama ra'iisul wasaare ka noqon karin jawaabtoodu waxay noqotay qoliyahaas waxa lagu jawaabay aayadu waa mudlaq oo xukunkan ah qiyaadadii hogaanka ragaysiisay waa idlaaqday idinku maxaa xagee ka qoydeen yaa idin qeyday oo qeyd idin saaray ma jiro wax qeyd saaray oo qeyday aayada ku qeyday xaq la leeyahay raggu way leeyihiin dumarku way ku leeyihiin inay tahay xilliga ay guriga joogaan oo xuquuqda qoysnimo haddaan idin ogolaano xataa oo nidhaahno aayadu waxay ka hadlaysaa ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din xuquuqda ay leeyihiin raggu ay haweenka ku leeyihiin xagga guriga kaliya ka hadlaysaa haddaan ogolaano oo warka idin ogolaano waxa iimaanaysa miyay suurtagal tahay haweeneydii haddii loo diiday inay gurigii madax ka noqoto
inay madax ka noqoto umuurta muslimiinta ay madaxweyne noqoto miyay suurtagal noqonaysaa taas waa maya midda kale aayadda akhirkeeda muxuu leeyahay fasaalixaatu qaanitaat gabdhaha wanaagsani maxay yihiin gurigooda kuwa jooga weeye mutiiciina xaafidaat xifdiya wixii ilaahay xifdigeeda ka dalbay subxaanahu wa tacaala qolyahaasi aayadda waxay damceen inay ku soo duulaan ay marin habaabiyaan aayadda madluulkeeda iyo dalaaladeeda mar habaabiyaan ee hadalkaas ay ku maran habaabiyaan laakiin ma suurtagal noqon waxaan rabnaa inaan wax yar tafsiir ka samayno aayaddan sidii culimmada qayb ka mid u fasireen sida ninkii la yidhaha imaamu fakhrudiin araazi fakhrudiin araazi kitaabkiisa tafsiir alkabiir mujalladka 15aad safxada 7aad wuxuu leeyahay markuu xaqul qawaamada ka hadlayay inna fadla الrijaali cala الnisaa'i xaasilun min wujuuhin kaiira bacduhaa sifaatun xaqiiqiya وبعضها أحكام شرعية أما الصفات الحقيقية فيرجع حاصلها إلى أمرين العلم والقدرة ولا شك أن الرجال وعلومهم أكثر ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل وقد أجمع علماء النفس أن الرجل أكثر عقلانية من المرأة وأقوى على تحمل المشاق فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة وإن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والآذان والخطبة انتهى بالتصرف الشيخ حلية هاي haddaan in yar af soomaali ku sheegoynku raggu inay fadli leeyihiin dheeraad leeyihiin raggu inay dheeraad leeyihiin ee haweenka dheeraad ka leeyihiin arrintaas waa arrin jirta dhinacyaal fara badan marka laga fiiriyo qayb ka mid ah waa sifaat dhab oo xaqiiqo ah qayb ka midna waa axkaam sharciya sifaadka dhabta xaqiiqada ah duubkeedu wuxuu u laabanayaa laba arrimood inay cilmiga aqoonta taasna waxay tahay raggu iyo culumtooda ayaa ka badan haweenka culumtooda markii la qaabiliyo weeye rag iyo dumar marka la qaabiliyo inta rag wax baratay iyo inta haween wax baratay mid ka badan inta rag wax barataa fara badan ee lagama hadlayo haweenay waxa laga yaabaa inay jiraan haween fara badan oo cilmi badan bartay iyo nin aan cilmi lahayn waa buuxaan intee jaahilaha oo rag aan waxba garanayn intee haween oo cilmi taqaana waa buuxaan taa laga hadlamayo ee waxa laga hadlayaa inta rag wax baratay iyo inta haween wax bartay haddii la isbarbar dhigayaa badan inta rag wax baratay baa badan sidaas oo kale ragga inay awoodaan al-acmaal shaaqa amalada iyo shaqada dhibka badan inay awoodaan awooddaasi waa mid kaamil ah ragga markii la fiiriyo raggu waxyaalaha uu qaban kara qayb ka mid ah oo haweenku qaban karin baa jira oo acmaasha shaaqaha dhib badan ah laakiin macnaheedu tan ma aha haweenku waxa ma qaban karaan ma waxa laga yaabaa inay haweenay ka karti badan tahay boqolaal raga ay suurtagal tahay hadda waxa la isbarbar dhigaya waxa weey labada jinsi ee rag iyo dumar ah ilaahay ma dhihin shakhsi gooniya ka fadli badan halkan kuma taalo aayada ee waxa weey ar-rijaal jinsiga rijaal la yiraahdo wa qawaamun ala an-nisaa jinsiga la yiraahdo haween marka ha u fakarina haweenku isu fakirin in la leeyahay waxa ma tihiin waxa ma qabataan iyo waxa ma gudaan waqad ajma'a ulama an-nafs ilmiga nafsiga ku tacalluqa nafta ku tacalluqa culumadoodu waxay ijmaac ku gaareen ay ku ijmaaceen أن الرجل ننكو جنسي الرجل يراهدا أكثر عقلانية عقلها إنه كبدن يهي من المرأة هوين إذا وأقوى ونكون حق بدن يهي على تحمل المشاق دبك حمبارديس رجو استاع كعقل بدن هوينك معناه رجي هوين بالغ هلايا هوين فر بدن رج بدن كعقل بدن باجرة هوين فر بدن أو رج بدن كعقل بدن باجرت لكن هذا لقى ما هلا تاس وحلقة هلايا نينكو جنسيga rag la yiraahdo uu ka aqal badan yahay jinsiga haween la yiraahdo waxay kala sheegeen culama u nafsigu sifa ku jirta haweeneyda oo ninka aan ku jirin iyo sifa haweenka rag ku jirto ninka aan ku jirin sifada rag ku haweenka ku jirta waxay tahay haweenku waa caatifiyiin
وحير حد ويماده ولا تفاعل يعني سامين بكية لنا يعني تفكير كودينا وحكو فكرانا ويريه والتحليل كان وتحليل علم النفس رجنا وعكسه رجو فكراه عاطفته سنو يرت markaas waxa wada noolaanaya ninkiyo tafkiir fara badan caadifadiisu yar tahay ya haweenaydu caadifadeedu fara badan tahay tafkiirkeeduna yar yahay marka waa tawaazun laakiin ninka hadii loo dhiibi lahaa wax tafkiirkiisu fara badan yahay isku mid bay noqon lahaa natiijo ma keeneen haweenaydan hadii loo dhiibi lahaa wax caadifadeedu fara badan tahay haweenkii caadifadeedu fara badan tahayna natiijo ma keeneen sidaas daraadeed ba xayaatada ka dhaxaysa rag iyo dumar ay tawaazun tahay isla siman tahay waa taxliil cilmu nafs marka wuxuu labadan sabab ba fadiilada iyo ziyaadadu fadiilada macnaha ziyaadadu ay haleeyeen raggu ay haweenku leeyihiin ay xasishay la helay aayadda markaan xagga uga baxno daliilka labaad oo inaysan haweenku madaxweyne noqon karin ra'iisul wasaare noqon karin wasiiru difaac noqon karin xilalka adag aysan qaban karin waxa weeye xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam lan yufliha qawmun wallow amrahum imra'a man libaani doono dad u dhiibtay arintooda iyo madaxtinimadkooda haweeney xadiidkani dalaaladiisa uu ku tusinayo mafhuumka ah inaysan haween waxba qaban karin waa dalaala binnas nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam lan markii la fiiriyo luqada carabiga wa harf nafyin wa istiqbal وحرف وحنفينا يديدية وح وديدنا يتهاي مستقبل من اللي باني دونان قوم وحوي وفاعلك لن يفلح ونكرة في سياق النفي تعم نكرة مركي دعدو النفي سياق ونفي كهريو عام بين نقطة قوم كستا بغض النظر عدوا دونها هذا امرأة النسيد وكاله وعام marka labadaba marka waxay ku tusinaysaa labadaba waxay ku tusinayaan ama xadiidku wuxuu ku tusinayaa cidii u dhiibato xukun u dhiibato haweeney inaysan liibaani doonin xadiidkani waa xadiid saxiixa saxaabiga la yiraahdo Abi Bakr tamana laga wariyay Bukhari uu ku yaala Imam Bukhari fi sahih xadiidku sheegay xadiidkan mafhuumkiisana ijmaacu ku guntamay ijmaaca muslimiintu xadiidkan mafhuumkiisa ayuu ku guntamay oo culimadu waxay ku ijmaaceen inaysan haweeney madaxweyne ummad muslimiin u noqon doonin في أي عصر من العصور وفي أي وقت من الوقت وفي أي حال من الأحوال إجماع وحصور الرأي صدح علماء من كبار العلماء المسلمين كم ابن حزم الظاهري ابن رشد المالكي ابن قدام الحنبلي وصدح مذهبه وكلا الدول مذهب ظاهري مذهب حنبلي مذهب مالكي انت waxay soo rareen inaysan haweenay madax noqon karin iyo wixii madaxtinimadka la mid ah ra'iisul wasaaraha iyo wasiiru difaaca inaysan noqon karin masaladaas ijmaac tahay mustanadkooda xadiidkan uu yahay dad marka waxa jira casrigan jooga oo magac la baxay kutaab qoraalayaal wax qoraan oo mutakhasisiin aan ahayn ku takhasusin shariicada diinta islaamka ilaa cilmi kasta oo takhasus gooni u leeyahay marka ruuxu rabo inuu shariicada diinta islaamka wax ka sheego waa inuu takhasuskeeda leeyahay oo waxa jira xadiidka soo weeraray xadiidka sixadiisa ma weerarayaan laakiin waxay rabaan xadiidka in ta'wiilaad kale u sameeyaan ta'wiilaadka waxa ugu horeeya waxa weeye xadiidku wuxuu ku soo aroray yiraahdeen meel khaas ah sababku xadiidku yimid baa sabab khaas aha oo waxay ahayd gabadha la yiraahdo Buuraan bintu Kisra ayaa madax waxay u ahayd furs markaasuu nabigu arkay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu xadiidka nabigu sheegay yiri lan yufliha qawmun wallow amrahum imra'a marka shuqul kuma leh ummadda muslimiinta reer furs baa laga hadlayay reer furs baa aan liibaanan iyaga madax ka dhigtay gabar ama dadka muslimiinta caadi u yahay sidaas ay dhaheen
waxayna qaateen fikrad ah in haddii shay caam soo aroro waxa uu ku soo aroray sabab khaas ah ay tahay sababtan khaaska inay khasisayso shayga caamka ah warkaasna waxa qaba culimada qayb kamid ah oo kamid yahay ninka imaam Malik iyo Muzani iyo ninka Abu Thawr waxay leeyihiin intaas waxay leeyihiin al-khusus waaqicada khaaska ah waxay khasisaysaa umumka xadiidka warkooduna war shaqeynaya ma nimankan culimada warkood war shaqeynaya ma sababtu waxa weeye ummaddu waxay ku ijmaacday laba waxyaalood ku ijmaacday waxa weeye aayadda la aayatul li'aan oo li'aanka ka hadlaysa iyo aayadda ka hadlaysa sariqada labaduba waxay ku soo arooreen sabab khaas ah ay ku soo arooreen ومع ذلك سببك خاص كاهي خصيص ما عمومك آيات اللي عنك هيد إيوه آيات سرقة كاليس لأنه هدي لها خصيصة وحكت لنا يسا إن قعن قوين تروح وتوقع لقعنت اللي قويو يروح قبل يسقط في اللي عنك وسمعين لها تذكر إلي خاص كو أهايا إنه أنا شغل كل هاي بكت لنا يسا تحصيل ما سعنيس marka warka aad leedihiin ree furus buu khaas ku yahay warjira ma ahana xadiidku waa caam al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab haduu lafdi caam soo arooro sabab khaasan ku soo arooro waa inuu caamkiisi baaqi ku yahay mas'aladaasina waa mas'alada xadiidku ka hadlayo jawaab weerarka labaad ee soo weerareen waxay yiraahdeen nabiga sallallahu alayhi wa sallam laba siyaalood baa xukunka loo qaataa mar waa ra'iisul dawla waa xaakim oo umur siyaasa iyo tadbiirka iyo maamulka maamulaya shacabka nabiga sallallahu alayhi wa sallam talabaadna waa hooyo umur tabliiq gaarsiinta uu gaarsiinayo wasaadaya nabiga sallallahu alayhi wa sallam bayna al-makhluuq wa bayna al-khaaliq oo waxyaalaha tabliiqa waxa kamid ah umurta xaraamta iyo xalaasha iyo manhiyaadka ka hadasha kuwaasi sidii ilaahay uga soo gaarsiiyay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ama umurta kale oo ah ku saabsan siyaasadda iyo maamulka la maamulayo dawladda la maamulayo umurtaasi ma aha umurta tabliiqa xadiidkuna wuxuu kamid yahay umurta aan tabliiqa ahayn sidaas daraadeed waxay leeyihiin haweeneydu madax bay ku noqon waa shubhada ay keenayaan shubhada labaad ay keenayaan waxa shubhadaas looga jawaabay umurta la yiraahdo umur siyaasa ama bikoonihi xaakiman nabigu yahay sallallahu alayhi wa sallam inuu xaakim yahay umurtaasi wax fara badan ma aha oo wax kooban kamana mid ma aha arintana kamid ma aha oo wax kooban arintana kamid ma aha oo waxa kooban maxay tahay yihiin waa umurta ku tacalluqda heshiiska inuu heshiis la galo madaxweyne dal kale dagaal inuu ilaamiyo in uu qaybiyo qanaa'imta qaybiyo inuu xadido calaaqada u dhaxaysa dal muslima iyo dad kale oo muslim ahayn calaaqada u dhaxaysa intaas weeye inta uu ruux madaxweynuhu muhiimadiisu ay leedahay uu qaban karo taasina kamid maaha arintan kamid maaha marka xadiidku sidiisii buu u joogaa waxay keeneen bushii saddexaad oo bay keeneen waxay yiraahdeen xadiidkani waa khabar al-ahad متواتر معها وحاجه واحد الى خبر الاحاد واحد الى متواتر متواتر هو حاله دها وحديثك اي وريين جماعه او اني بين ku heshiiyaan ay mustaxiil tahay xadiidku marka mutawaatir ma aha ee waxa weeye xadiid ahad xadiidka ahadku dalaaladiisu waxay tahay dhanniya marka sidaas daraadeed kuma tusinayo xadiidku kuma tusinayo inaysan haweenaydu madax noqon karin وشبهه كينين شبهadaas waxa looga jawaabay xadiidka markuu yahay khabar al-ahad waxaan fiirinaa wuxuu ku soo arooray haduu ku soo arooray umurta fiqiga ah sanad ahaana xadiidku sax yahay matn ahaana uu sax yahay xadiidku ومتن ahaana aan saxay xadiidku sanad ahaana xadiidku aan saxay wuxuu ka soo aroorayna ay tahay umurta
fiqiga ah culimadu waxay isku waafaqeen inuu daliil noqonayo arinta hadda aan ka hadlaynana madax inay haweeney noqotana taas ay kamid tahay waa umuurta fiqiga ah xadiidkuna waa saxiix oo Bukhari uu ku sugan yahay dalaaladiisa uu ku tusinayo shay uu ku tusinayo dalaal nas marka warkiinu war soconaya ma marka waxa soo dhan waa isku day in la isku dayo xadiidka in la marin habaabiyo tusinta uu tusinayso in haweeneydu madax ka noqon karin dawlad islaam ama madaxnimadkaas ha noqoto imaam al-udma ama ha wixii ku macnaha noqoto sida ra'iisul wasaraa wasiiru difaac wixii lamida waxaa jira marka ay keeneen niman khawaarij oo la yiraahdo shabiiba koox khawaarij oo shabiiba la yiraahdo kooxdani khawaarij oo dhammaan waa qayb kamid ah waxayna dagaal la galeen ninka la yiraahdo Xajaaj bin Yuusuf waxa ka waramaya imaam عبد القاهر البغدادي كتاب كيس الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي نمان كاس وحي قبان هوeenaydu inay madax u noqon karto iyaga hadii ay dadka khilaafsan ku duuleyso iyagana ay taageerayso wax daliil ah maanta sheegayna ma jirto wax daliil ay sheegan ma jirto ninkan shabiibada waxay ku abtirsadaan in la yiraahdo Yazid waxa la Shabiib bin Yazid ash-Shaybani waxaana lagu kuyoodaa Abu Sahara baa la jiray ninkani wuxuu weerar ku qaaday Kuufa xilliga Xajaaj bin Yuusuf uu joogo iyadoo hameen saq dhaxay tahay hooyadiisna waxay madax ka ahayd gabdhaha khaarijiyaadka ee khawaarijta ah isna wuxuu madax ka ahaa ragga khawaarijta ah kun bay ahaayeen marka saq dhaxay hameenkiiba Kuufa soo galeen Kuufana waxa jooga Xajaaj bin Yuusuf oo dawladda reer Bani Umayya uu ahaa wasiir difaac u ahaa baa jooga wuxuu yiri faraha ka qaada hawaagu habariyay markay soo galeen Kuufa ayaa waxay ka abaareen masaajidka dadkii masaajidka jooga xuraasta ahaa ee masaajidka ilaalinaya laayeen dadkii i'tikaafay masaajidku i'tikaafayna way dileen ta khawaarij maxaa kale ka sugays khawaarij iyagu dadka muslimiinta un bay laayaan sanabi maxamed baa noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam dadkii i'tikaafay masaajidku i'tikaafay dadkii xuraasta masaajidka joogay bay eber ka dhigeen hooyadiis baa markaa waxay fuushay minbarka masaajidka khudbay ka soo jeedis qazaala dha hooyadiis waxay ka soo jeedis khudbay ka soo jeedis hadda ka hor bay nadar waxay ku gashay inay laba ragcadood ku tukato Kuufo isagoo Xajaaj bin Yuusuf joogo suurada la yiraahdo suuratu Baqara ee Ali Imraan ay ku akhriso laba ragcadood nadarkii way rabtaa inay ka rumayso marka nimankan halkaas marka waxay yiraahdeen khudbada ay markay soo jeedisay halka waxay ka qaateen inay noqon karto haweeneydu madax laakiin bishardayn bay yiraahdeen inay annaga noo danayso dadka annaga naga soo horjeedana ku baxdo ee madax ka layso waan in hooyadiis u raadinaya iyo koox aruursatay oo kun ruuxa fikradan waxaad arkaysaa marka dad badan oo mucaasiriin ah oo laga yaabo in magacyadooda aan sheegno inay u hiiliyeen khawaarijta ragaas waxa kamid ah nin la yiraahdo Dhaafir al-Qasimi oo muhaami ah qareen ah وأنا متخصص معه شريعة إنسان روح تخصص معه كتاب ليه له نظام الحكم في الشريعة والتاريخ كتاب كاس وحقوق نصرين يا فكر كخوارج وأقول يا واكون كالروح ضدك المسلمين تلاقي همين كستقد حان صاق عليه هوين إذا من بركنتين سارين يرادين ناخذ به يرادين وحكى له كم إذا رجع نصري فكرة داس نين اللي هذا محامي كلا ولا هذا ومحامي وقرن عبد الحميد الشواري بكتاب حلية الحقوق السياسية للمرأة فكرة أساسنا أبو نصري أو هيلية وحكى له إشاري دكتور لي هذا دكتور توفيق محمد الشاوي
oo isna kitaabka markuu tacliijinayay kitaabka la fiqh al-khilaafa wa tatawurha oo iska leeyahay ninka la Astanhuri sheekh la Astanhuri iska leeyahay markuu tacliijinayay oo tacliiq u saaray kitaabkaas tacliiq saaray fikradaas isna uu nusreeyay waa koox yar oo kun ruuxa oo wiiliyo hooyadiis ah oo xukun raadsanaya oo dadka laynaya muslimiinta ah fikradooda bay soo qaateen iyaguna shart u shartisanaya waa inay anaga dantanada ka shaqeysaa dadka kale waa inay laaysaa waa inta shaadka bay u nusreeyeen marka arinta inaysan haweenay dal islaama ama imaam al-udma ha noqoto ama ra'iis dawla ha noqoto ama ra'iis wasaare ha noqoto ama wixii la macna wasiir difaac ha noqoto inaysan noqon karin waa mas'alo ijmaaca xadiidka weerarka weerarana ma ansixin iyo shubooyinka ay sheegayaan waxa kaloo kamida xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam daliilka inaysan haweenku noqon karin madax nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها حديث كما حصل ساريا ترمذي كتاب كيسة أي قصة ساريا سنن الترمذي كتاب الفتن وحنا اللي هي حديث كان حديث غريبة والله كان نكلي صالح المري وهو رجل صالح تخريج حديث واساس النبي وحليه صلى الله عليه وسلم حدي أمردين وددك مدحدا إذين نقضي أي شرط كوا شرط بدن يهين أغنيادين ددكينا تاجرين تانا أيهين كوينا بخلادا وان لعقتي قرشك بحنين أرنتينا أو قدام بيسان هوينك أو قدام بيسان waxaa idinka khayr badan inaad dhulka joogtaan gudihiisa inaad gashaan oo leeyataan halka waxay ka qaateen culimadu xadiidkan inuu tusayo inaysan haweenku marna noqon karin madax noqon karin laano nabigu wuxuu tilmaamayaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam inaysan khayr ba ku jirin ba in marka ruux adduunyada jooga haday haween madax noqdaan ayna tahay inay dhulka galaan iska leeyataan ba idin haboon حديث كلا علماء سود اللسدين إن السنهوين يدو مدح نقون كريم ده الإسلام مدح كان نقون كريم حيث هاي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول النبي ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن أخرجه الإمام البخاري ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أركين wax aqligoodu gaaban yahay diintooduna gaaban tahay oo hadana aqligii ninkii ragga ahaa qaadaya wax ka daran idinka ma arkin idinkoo aqligiinu gaaban yahay markii loo fiiriyo rag diintiinuna ay gaaban tahay yar tahay hadana raggii aqliga lahaa ee maskaxda lahaa aqliga ka tagsiinaysa denin haweeney hadii soo qaabisho haweenku waxa weeye Soomaalidu maxay ku mahmaadaa awr wadayo nin naag wada midna he kama leexdaan ninkii raga hadii haween u soo sheekayso aqligiisa ba tagayaba ama walaash saata ama tuu qabahaat ama tuu kala wuxuu sheegtaba ahaato ku ooyda ama ficil ku sameeyay marka xadiidkani wuxuu daliil u yahay in haweenku عقليا كهوسيان رجع ما معناه هذا جبر يويل ويل كان يجبر عن لبا شخص معه جنسي على هذا الإنسان هو بس شيء لبدا جنسي لبدا قراء رجع دمرة إن كالعقل بديهين بحديث إثباتنا يا أو سجيا حديث كان شو بيكون سأروريين وحيل هذين حديث كني وحب كسر الجذابة إن حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محايا لي حديثك وحق الماما يا هوينكم يسن عقل اللهين دبالين يهي وحاسنا نبي محمد كما صورت قالها
waxaa la xadiidku uma soo aroorin haweenka inuu nusqaamiyo xadiidku inuu haweenka nusqaamiyo uma soo aroorin ee nabigu arintan uu sheegayo wuxuu ku sheegay fi macrad al-mubaasata farx gelin uu haweenka farx gelinayo oo xadiidka macnihiisa hadaad fiiriso waxa weeye idinka oo abuurid ahaan aqligiinu ka hooseeyo ragga haddana awoodda aad u yeelateen oo ilaahay idin siiyay inaad raggii aqliga badnaa aad aqliga ka qaadaan waa farx gelin iyo la farx gelinayo ee ma aha nusqaamin la nusqaaminayo gabdhaha la nusqaaminayo saan hore u soo sheegnay waxay culamaa ijtimaac iyo culamaa nafsi sheegeen haweenku inay aqliyan markii taxliil lagu sameeyo aqligoodu ka yar yahay rag taasina aysan u ahayn ceebiga lagu ceebeynayo ceebiga lagu ceebeynayo marka intaasoo dhan waxay tilmaamayaan haweenku inaysan madax ka noqon karin dal islaam ah fikradda ah sinaanta la leeyahay hal la sinaado rag iyo dumar hal la sinana fikrad falsafad maskaxda ku jirta inay tahay aan waaqica loo soo daadajin karin oo lagu xukumi karin waaqica haddii la yiraahdana fikraddaas hal la qaatana ay ka ratimayso mafaasid fara badan ka ratimayso waxay kaloo yiraahdeen culimadu waxaa jirta wax la yiraahdo qawaacid al-fiqh al-islami qawaacid al-fiqh al-islami waxa kamid ah dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih haday yimaadaan istaarudan maslaxad iyo mafsada haday istaarudan wax dan ah iyo waxaan dan ahayn wax fasaada iyo waxaan fasaad ahayn waxa la hormarinayaa درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وحاله هرمرينيا ان فسادكي laga hortago suusan fasaad ku dhicin nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu yiri fi hadith al-bukhari wa imam bukhari ku soo saaray kitab al-i'tisam bis-sunnah al-i'tisam bil-kitab was-sunnah bab al-i'tisam bil-kitab was-sunnah ku soo saaray imam bukhari wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam نبي حليه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا عنه حدان إذا أمره شيء حدان إذا أمره واحد أودان كلا إمارة حدان شيء إذا كان هينا كربتون هذا مركا اهتمام شرع محسينية منهياتك أكثر مأموراتك waxyaalaha la amray iyo waxyaalaha laga nahiyay wuxuu awood shaaraa sharcigu waxyaalaha manhiyaadka asi u manhiyaadku loogu dhicin markaas qaacidadan culimadu ka soo qaateen oo ah ala hada al-asas al-hadith jalb al-masalih dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih in fasaadka la reebo ayaa ka horeysa in maslaxa la keeno hadda marka hadii la yiraahdo haween madax noqoto waxa ka dhalanaya mafaasid fara badan hadii la yiraahdo maslaxaad ku jirta ee haween madax noqoto waxa ka daran fasaadka ka dhalanaya fasaadka ka dhalanaya ugu horeeya waxa weeye inhiyaar al-hayal al-aa'iliya waxa dumaya noloshii qoys ba dumaysa ونشق qoysay ku dumaysaa haweenka waxa loo ogolaa inay wax dhalaan iyo awlaad inay tarbiyayaan iyo gurigooda inay maamushaan hadii la yiraahdo marka tago madax noqdo oo umurta caamka sameeya maxaa ka dhalanaya meeshaas in qoyskii uu dumo wax qoys la yiraahdo uusan jireyn وحنا نظام إلهي دجي سبحانه وتعالى ونظام إلهي دجي وفساد كإمامي مركا على هذا الأساس فساد كيوصل إيماني مركا يا مدح لك دقين وي هدوس فسادكو سدوس فسادكو إيمانين يا مدح لك دقين
كو وحكلو كدلنيا ان hadii la yiraahdo haweenka madaxa laga dhigo الاختلاط rag iyo dumarkii inay isku darmadaan laana madax ay noqoto samaa waa ina maalin kasta diyaar raacdo waa ina shirar la kulanto waa inay xataa shirarkaas qayb khaas ah jira qayb khaas ah oo qolal la isku soo xiray in gasho inay rag iyagu ay haye hawshu inay khatar noqoto samaa اختلاطكuna shariicada diinta islaamka waa mamnuuc fasaad bay min samaa inay madax noqoto fasaad baa ka yimid markay madax ma noqon ba aslan hadda waxa la og yahay dunida caalamka ee qawaaniinta qaadatay qawaaniinta wadciga ah ee qaadatay waxay dhibaato badan ku hayay ikhtilaafka dhibaato badan ku hayay ilaa gabadha waxay yiraahdeen freedom baa tahay xorriyad baad leedahay waxa doontaa sameynaysaa shaarici aad gabadhi marii baa la iska dhigay rag baa lagu darmaday fasaad badan baa ka dhashay ilaa ay markii dambe iyagu ay sameeyeen qawaaniintooda ku sameeyeen fasaadka inay ka hortagaan oo ah waxa la yiraahdo waxay sameeyeen hadii aad gabadha taxarushto oo ku khasabto xumaan ku khasabto xarig baa taa intaas oo sano marka horeba ikhtilaafka manciyaan dunidii ogolaatay ikhtilaafka ogolaatay reer galbeed iyaga maanta ikhtilaafka dhibaato weyn ku haya ilaa ay xal u raadinayaan oo qawaaniintooda ku daraan inay xal u helaan inay manciyaan شريعة دين الإسلام كنا ما أقول واحد اختلاف ليرة في الأجل هذا فساد سوسن أقول إما إن قبضنا ما تحتنا ما كذا هبل لو دي ده ما تحتنا ما تحتنا من نقول يسد هنا ما نحن قلت ممنوع وين لأنه هنا ما نحن قلت مصلحة ده كإيمان يسا إيوه فسادك كإيمان وحابنا فسادك كإيمان أيا بدن كو إن waxay kala yiraahdeen qiyaas ahaan daliil qiyaas ee keenan culimadu waxayna shariicada diinta islaamku waxay saaran tahay faariq tabiici ah kala duwanaansho xagga tabiicada ah ee abuurka ah ee rag iyo haweenka faariqaas way ictibaarisay way ogashay shariicada diinta islaamku faariqaasna waa xagga abuurka iyo takwiinka ilaahay uu siiyay gabadha marka ilaahay wuxuu abuuray gabadha ama ruuxa haweenka ah si munaasab u ah dabeecadeed munaasab u ah ilaahay uu abuuray midda kale haweenka waxa ku yimaada cawaarid waxyaalo soo dariya oo sanadla ama billah kuwaas oo daciifinaya awoodeeda macnawiga iyo inay go'aankeeda qaadato iyo inay go'aankaas difaacdo intaba daciif ka dhigay maxayna cawaaridaas kuwa sanadlaha ah waa uurka ay ureysanayso marxalad bay maraysaa ay ureysanayso gabadha culeys qaadayso ka bacdina uurkii bay dhigaysaa fool baa qabanaysa dhiig leeyahay nifaas baa ku dhacay muddo ayay dareemaysaa dib iyo xanuun dareemaysaa waa cawaarid sanadla cawaaridda shahriga ahna waa caadada dhiigga caadada ku dhacay dhiigaasoo marka uu ku dhaco gabdhaha saameyn u keenaya muxuu saameyn ugu keenaya xagga awoodooda iyo macnawiga ah qiimahooda ah dadnimadka ah iyo wuxuu u keenayaa go'aanka ay qaadan lahaayeen iyo difaaci lahaayeen go'aankooda marka sidaas daraadeed maadaama halkan arinta tahay aan sameeyno waxa la yiraahdo ilhaaqu nadir bin nadir madaxtinimadku marka maxay u baahan tahay go'aan adag waxay u baahan tahay dhakaa iyo fitna ay u baahan tahay waxay u baahan tahay difaac bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waqti intaasba suurtagal uma aha iyadii فلأجل ذلك aan dhahno mamnuuc weeye gabadhu inay madax ka noqoto dal muslimiina inay madax ka noqoto dal muslimiina mamnuuc weeye aan dhahno
بكل هذا مسألة مركا ما حيكون عداتي عن كلا قادنا مسألة ده ما حنو كلا قادينا إمام العظمى إيو رئيس الدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع انتاس wax khilaafa kama taagna in aysan gabadhu xilka qaban karin markaan ka hadlayna waxa weeye marka hore ilaahay uma siinin oo ma dhihin uma ogolaan inay aadaana waa xadgudub sharciga diinta islaamka ku xadgudbayso waa macsiyo xalaal ilaahay ugama dhigin gabadhu haato inaad ugu kaalmaysaana waa tacaawun cala macsiyo إلهنا وحده وتعاونوا على البر والتقوى نينك وكان بين قرينيا نينك حولها كوب حنيا نينك عد أهان كسبوت قرينيا نينك عضينيا انتبع ممنوع دولة إسلامنا حق أمله إن حقود كوسا ما يسأرنتن إلهي سبحانه وتعالى ممنوع كذا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حجنا من نقول يس الدستور بيكون قرنته marka aad dastuurka sad ku qori kartaa wuxuu markuu shariicada diinta islaamku maadaama aad ruux muslima tahay nimba ruuxu waxa laga hadlaa wuxuu ogol yahay haduu ruux muslima yahay quyuud xiraysa ruuxa muslimka waa shariicada diinta islaamka Soomaa ama gabar ahaw ama wiil ahaw hadii marka aad dastuur dajinaysid dastuurkaagu mamnuuc weey shariicada diinta islaamka wax ka soo horjeedaan ku qorto من السود اللي سنكرتينا شريعة الدين الإسلام كوحيلها أدلة كمية ما هنا تناظر دستور كي كقرنت دستور كي كقرنت مسألة لا سمر كخلاف كم تاني إن مسألة لا سوى مسألة الله بعد كحيت مسألة الله بعد كحيت وحيت هاي هنا يحل بعض نقط هنا وزارة أي مدح كنقط وزير نقط يينا قاعد نقط مسألة ذني علماء المسلمين تكون كلا تغير خلاف بقى كتاغن وين وزير نقطة يينا يحل بان نقطة يينا قاعد نقطة يوحي لم إذا عماش وظيفي قاع ومسألة خلاف كتاغن إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وحليه هي gabadhu qaadi way noqon kartaa waxay ka marxaati kici karto bay qaadi noqon kartaa maxay marxaati ka noqon kartaa marka waxay marxaati ka noqon kartaa wixii aan xuduud iyo qisaas ahayn الحدود حد قذف حد الزنا وحاس وحلمده iyo qisaasta waxa inta waxaan ahayn marxaati bay ka noqon kartaa oo ah munaazacaadka kale waxyaalaha la isku qabsada sida munaazacaadka amwaash iyo wix lamida way ka noqon kartaa marka waxa ay marxaati ka noqonayso qaadaha ka noqoto waa warka imaam Abi Xaniif marka waxaan warkan u sheegaynaa waxay tahay lil amaana al ilmiya وحاو نكل يراهد ابن قاسم المالكي وعلماء المالكيين كميده isagoo mowqifkiisa ku saabsan gabadhu inay qaadi noqon karto macda mar wuxuu leeyahay wax kasta haka qaadaha ka noqoto ha kala saarto intay xafiis tagto xafiiska loogu yimaado dadku dacwada u yimaadaan ha kala bixiso ummadii oo nin walba wuxuu leeyahay xukunka shariicada islaamka ha u qaado wax ay ku qeydan tahayna ma jirto marna wuxuu waafaqay imaam Abi Xaniifa wuxuu leeyahay waxay marxaati ka noqon kartaa waxay qaadi ka noqon kartaa waxay marxaati ka noqon karto oo wuxuu waafaqsan yahay imaam Abi Xaniifa naqligiisa laga soo naqliyay labadaba waa laga soo naqliyay labadaba laakiin sida badan wuxuu waafaqsan yahay ra'yiga imaam Abi Xaniifa oo ah haweenaydu inay noqon karto qaadi kala saari karto dad waxay marxaati ka noqon karto oo ah waxaan ahayn xuduud iyo qisaas ahayn ee waxyaalaha kale la isku qabsada
ama xuduudda iyo qisaasta maya haween markhaati kama noqon karto marka raaci mayso marka qaadina kama noqon karto hadii markhaati ka noqon karin qaadi kama noqon karto warka imaam Abu Hanifa ibn Hazm al-Zahiri يا شيخ اللي يراهدو ابن جرير الطبري labadaas waxay leeyihiin haweenaydu qaadi bay noqon kartaa wax kasta ama xuduud ha noqoto ama qisaas ha noqoto ama munaasacaadka kale madaniga ha noqoto wax allaala ay marxad ka noqon kartaa wa culummadii hore labada ra'yi baa lagu kala baxay waa waxa ku saabsan qadaha maxaa haleelaya sida wasaaradda iyo wixii la mid ah دكتور سعيد رمضان البوطي iyo ninka la yiraahdo Mustafa As-Subaaci Dr. Mustafa As-Subaaci waxay leeyihiin ra'yiga waxaan taageersanahay inay haweenku kamid noqon karaan qaadi ama fi kulli shay ha noqoto sidoo qaba Ibn Jarir al-Tabari ama هنقطة ابن جرير الطبري ابن حزم سيقبان أما هنقطة أبي حنيفة ورك وقبة وحي مرخاتي كنا وانكرت ورك عسان أقولنا هي لهذين والله دكتور معاصرين دكتور جودن بيجي واتي سوري الجودلي دكتور نكلي هذا سعيد رمضان البوطي يا دكتور مصطفى السباعي حال كاس الراعينا وحير هذا وحال لم يذا قضاها وحال لم يذا وزارة إن وزير نقول كرت inay xildhibaan noqon karto inay wasiir noqon karto inay xildhibaan noqon karto inta markaan maxalka kaga soo baxno madaahibta kale shaafiiciyada oo inagu nahay iyo xanaabilada iyo maalikiyada ibn qaasim marka laga reebo waxay leeyihiin haweeney qaadi ma noqon karto aslan haweeney wax qaadi ay noqon karto ma jirto وانا قولك راجحه قولك راجحه waxay tahay saddexda madhab wax qaadeen inay xataa haweenku is noqon karin qaadi hada wasiirna marka wal raaca xildhibaanimada ka raacaysa waxayna u soo daliilsadeen xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri al-qudaatu thalatha واحد في الجنة واثنان في النار أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار تذكر حديث كان وحصوص على أبو داود ترمذي ابن ماجه إمام السيوطي الجامع الصغير وحكوا إشارة حديث كان إنه حديث صحيح حديث كان إنه حديث صحيح كو حديث مفهوم كسم حياتها قضاة وصدح قاضي وهل جنة كجرا واقع كان جنة كجرا والروح قرنا إياه حقي بقرنا إياه تذكروا كوكا الحكومة وأهل الجنة لبضا كله وأهل النار والله بده حق وقرنا إياه لكن حق ذاتكم ما حكمين وأهل النار كلبانا حق ما بقرنا إياه بس هو جاهل وحكم كلا باشر أن أقوم به سيلا وحلي ولا تقف ما ليس لك به علم وحدا أقون لهين هبرع الراعي وحسن أقون لهين بقلي وسنقرنين وحكو حكمي dadkii على جهل فهو في النار marka waxay yiraahdeen xadiidku muxuu cadeynaya rajulun xadiidku muxuu cadeynaya rajulun waa lagu qabsaday culimada waxa la yiraahdaa rajulun sama waxa tiraahdeen rajul bi xadiidku cadeeyay maxaa meesha ku baxay haweenku qaadimo noqon karaan halkaas kala soo baxdeen ha waxa la yiraahdaa mafhuum mukhalafa ومفهوم هذا حديثك وحو عدي رجل سماه ما حا كغرناي halkaas haween xukum kan marka inay janno iyo naar
labana naar galaysa midna uu janno galayay yaa la siiyey raggaa la siiyey haween shuqul kuma leh marka haweenay qaado ma noqon karaan saas u taqriiriyay marka waxa la yiri mafhuumu mukhalafuhu inuu xujo noqdo waa mas'ala khilaafiya waa meesha khilaaf ka imaanaya waa mas'ala khilaafiya midda kale culimada ogol in mafhuum mukhalafa daliil noqonayo waxay shardi u shardiyeen qaydku waa inuu san faa'iido kala wadan hadduu qaydku faa'iido kala wato xukumkii mafhuum mukhalafa keenmay haddana qaydku wuxuu wataa faa'iido kale oo maxay tahay sharcigu wuxuu rabaa inuu ku tilmaamo ruuxii xaqi yaqaano xukumay caadil ruuxii aan xaq aqoonna jaa'ir kii kale oo aan xaq yaqaanay aan laakiin ku xukminna jaa'ir marka mafhuumka iyo dowlajeedka sharcigu waxa weeye inuu kala qaybiyo ruuxa caadilka ah ee caarifka ah xukumka yaqaana iyo ruuxa jaa'irka ah jaahilka waxba kala aqoon arinta aad la ordaysaan aad leedihiin rajul baa shardi ahna arin shardi ma كو waxay kale ay culimadu ka hadleen ugu dambeyntii waxay culimadu ka hadleen yiraahdeen markii saa loo kala qaybiyay oo soo kala qaybinay in culimadu qayb kamida ay ogol yihiin gabadha inay qaadi noqoto fi kulli shay oo ibn jarir at-tabari ibn hazmi iyo qaybna ay leeyihiin waxay marxaati ka noqon karto Abi Hanifa ibn Qasim al-Maliki sida ra'yigiisa ugu badan Shaafiiciyada iyo Xanaabilada iyo Maalikiyada inta kalena ay yiraahdeen ma noqon karto haweeneydu qaadi ma noqon karto qaadigaasna aan raacin karno wasiirka iyo xildhibaanka aan raacin karto markii saa loo kala qaaday ayaa culumadii shardisay inay gabadhu qaadi noqon karto وزيرنا راعي وزيرنا قنكرت حلبان قنكرت علماء شرطيسي waxay yiraahdeen dawaabid baa loo baahay waxyaalo qeydaya iskama furna gabar kasta iskama noqon karto xilli kasta iskama noqon karto xaalad kasta iskama noqon karto waa inay quyuud leedahay quyuudda kugu horeeya waxa weeye al-hijaab waa inay gabadhu multazima tahay hijaabka iltizaamto لأن شريعة دين الإسلامكو حجابك هو واجب إن قول محجبة نقط أي قريصه ماذا حيدا قريصه يحبط كذا يجر كذا قريصه شيء واجبة كو هذا مركا قول متبرج تهاي عن حجابك لهين أساس حجاب لهين ده مركا معصية بكجرتها مركا وأين التزام صوصة ما يصير حجابك وسوء التزام تاع أكو وأنا أساسه بين تبرج كوحوي إنسان موجنين عورة إنسان موجن وقبل يوضع حجابا بلا يابن التبرج كله وعلماء بعضنا وسلف كم إذا مجاهدي وكم إذا وحليين تبرجك وأنا قبله صعد كذا بدش وأنا استجبسه تكسر قصة ما يسوه أما حرقة قولية سميسو كاسة وحالة تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى مرة هذه كبوا وين تقاطع كليو أما أي عورة مجسا كليو أما مريا كل دقيقة قاطع كليو وحيالها أصلا من قرية من باب التبرج إن أي مجسي عورة قيب كمية أما أي مجسي زينة قح كمية وحتى تبرج كمية نقول يراهدين إني هوينيدو سميسو قروح زيادة إني إسكو حيس مثلا ميك أبكي مركز مريان قبله أما تجان سالون كوكالي أنت وحياة صبيان وحكميته التبرج شرط يقول ري وحجاب وعلوم الله يسوي حنا قنقرته وزيري قاضي وحاصلا وقولك اللي راجع هنا قولها كراك بدن كراجع سن كو الحجاب كلاباد waxa way عدم التبرج
وإن استبرج سمين وإن إسوافج سيران شرط صدحات وإن إسوافجسه نولا شيء ذا قيس نمائيو يشقر وإن إسوافجسه حقوق ذنك وكلها وإن أوفيس حقوق ذنك وكلها وإن أوفيسه وقولي هذا حقي لو قال هاي مسؤولية كسرني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راع في بيت زوجها هوينيد waxay raaci tahay oo ilaalinaysa xifdigeeda laga raba guriga ninkeeda taas waa in laazimtaa haday iswaafajin weyso xaq uma yeelanayso way adagtahay marka waxa laga yaabaa xijaabka inay samayso cadam tabaruj inay samayso waa laga yaabaa laakiin qodobka ah inay iswaafajiso nolosheedii qoysnimo iyo xuquuqdii ay ku lahaa ninkeeda iyo carruurteeda ku lahaa ee gurigeedu iyo shaqada ay hayso ay wasiir tahay ama ay tahay qaadi tahay inay iswaafajisaa xogaa waa aad bay u adagta markaas oogama habboon in gurigeeda iska joogto waxa uga habboonba inay gurigeeda iska joogto iyo guriga laftiisa wuxuu yahay mujtamac musaqara iyada hoggaan yar ah marka mas'aladu xukunkeedu waa sidaas madax inay noqoto gabadhu al-imaam al-udma ama ra'iis ad-dawla ra'iis al-wuzara wasiir ad-difaac iyo wixii lamida mamnuuc bijmaac al-muslimiin بحديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه في اي زمن في اي عصر من العصور وفي اي وقت من الوقت وفي اي حاله من الاحوال إجماعنا وحكوص الرانري ابن قدام الحنبلي ابن رشد المالكي إياه نكل إلى هذا ابن حزم الظاهر مسألة الله بعدنا يتهي مسألة لوكل الدوية هو قاضي من نقون كرتا محا قياس كذا وزير يين نقط حلبان أبي حنيفة وحول قاضي من نقون كرتا وهي كما خاطر كعيسون أهين حدود يقصاست qolada kalena waxay yiraahdeen oo warkaas waxa ku raacay ibn qasim malik ibn jarir at-tabari iyo ninka la yiraahdo ibn hazm zaahirna waxay yiraahdeen wax kasta ayay waxay ka noqon kartaa qaadi laano sababtu waxay yiraahdeen qolyahan haweenaydu haddii caalim noqoto oo cilmi yeelato ila cilmigu talab al-ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima روح كاستو مسلمه يا جبر نين كاستو مسلمه يا جبر كاستو مسلمه ونقون كرتا عالم نقون كرتا علمنا ولا ودا سميه هذا عالم نقطه او فتوى لا ويديو سما فديان كرتا wax kasta ha هذا wax kasta ha xukunto illa fatwa waa nooc xukun kamid ah fatwada maxaa weeye ibdaa'u al-hukm fi al-mas'ala mas'alada xukunka inaad muujiso qaadiguna wuxuu ku soo saaray ilzaam ra'iiskuna wuxuu sameeyaa tanfiid وفلنيا markuu xukumkii fitiyoodo muftigu oo cadeey mas'alada xukumkeedii qaadiguna uu xukumo mas'alada ilzaam sameeyo ayaa ra'iisul dawla tanfiid ku sameeynaya xukumka fulinaya marka maadaama ay haweenku haday ay caalim noqoto wax kasta fidiyoon lahayd wax kasta na xukunto waxay kala yiraahdeen حديث حاجرة إمام طبري صار كتاب كيس كوسو صار الكبير ولا قولنا حديث يحيى ابن أبي سليم وحير رأيت وحان أركي سمراء بنت نهيك قبل إلى سمراء بنت نهيك وعليها درع قليظ وخمار قليظ وبيدها صوت تؤدب الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حديث كم حصل صار طبري كتاب كيسة الكبير نقل هذا هيثمنا في مجمع الزوائد وحير رجال ورجال ثقات ورجال ثقات وانصح قبل أن محيط ولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها حلق النبي يجوته قبل لأن هذا سمراء بنت نهيك وأنا أركب سمراء بنت نهيك بان أركب يضع حران خمار أدق
iyo diric adag gacantana ku wadata ul dadkay ku adbinaysay wanaagana way amraysa xumidana way ka nahyeynaysa marka maxay tawliisa gabadhani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar marka sidaas daraadeed qadiha tawliisa hana tawliisa wasiir ha noqoto xildhibaan ha noqoto qolii kalena waxay yiraahdeen maya oo shaafiiciyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada maya oo xadiidka wuxuu soo daliishadeen al-qudaatu thalath xadiidka laftiisa waxay ka qaateen culimadu dawaabida hadda aan sheegaynay oo ahaa al-iltizaam bil hijab wa 'adam at-tabarruj wa at-tawfiq bayna الحياة العائلية والوظيفة وقدام بينتي مسألة مدوالة محلان ممنوع وشريعة دين الإسلام وإعانة على المعصية روح كستو كقيب قاته وإعانة على المعصية جباري ما نقول كرتو شريعة في منظور الشريعة الإسلامية مدح ما نقول كرتو ضل الإسلام مدح كمان نقول كرتو رئيس الوزراء ما نقول كرتو وزير الدفاع ما نقول كرتو إمامات عمهات وحدونهات ومسألة إجماعة حديث النبي قال الدليل لن يفلح قوم ولوا أمرهم حديث كاسنا دلالة سوى نص ويقعد هاي ممنوع مسألة الخلاف كتاعية وحوي قادم من نقون كرتا وزير من نقون كرتا حلمان من نقون كرتا مسألة أصلا ومسألة علماء أنت هذا بدن أي كتاعين إن نقون كرين طيب يربع كتاعي أو أبي حنيفة جرير الطبري ابن قاسم ينك لي هذا من حزب ظاهري لكن جمهور لنا عاسق بقى قولنا كلا حتى ان جمهور تاهين شروط داس شرطنا يعني marka mas'aladu macnaheedu ma aha in haweentu xuquuqdooda lagu xad gudbay shariicada diinta islaamku sida ay u ilaalisay haweenka meel cid u ilaalisay ma jirto waxa laga dhigay gabadha muslimada ah markay ku jirto shacabka muslimka waxay la mid tahay boqorad guriga joog ha lagu shaqeeyo waxaad rabtana ha lagu keeno xilkan iyo waxaan iyo mashquulkan iyo balaadeen shidada dhibaatadan ha gelin macnaheedu waxa way boqor baana marka boqortooyadii taajka ilaahay ku saaray haday gabadhu si qaada ka war midda kale nabiga sallallahu alayhi wasallam kuma gaabinin xuquuqda haweenku leedahay inta uu ninku nool yahay mas'uuliyadda ninka saaran darteed كما قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ونك نوليه محيي النبي استوصوا بالنساء خيرا حتى ما كان لمن يصلحتها هويني وأنا كدر درنت ما هوينك أنت جوجته إلى علي حقوق ذا مركز أي هيستو جوارنا مسلمة ما هيستو جوار كلا ما هيستو مشكلة ذا مركز تمين ما أنت رجال بيتكم نوع كينين oo guri kasta iyo meel kastaba ku jirta kana sii daran marka aad gabadha muslimada soo qaadanayso waxa la rabaa inay maskaxda ku hayso mujtamacan horta muxuu yahay mujtamacan waa mujtamac muslima maxaa qeeyda shariicada diinta islaamka adiga xaq ma u leedahay marka inaad madax noqoto mustahaq ma lihid marka hore taa ogow inta aan la fiirin awood ma u leedahay xilka ma ka bixi kartaa mise kama bixi kartid xilka ma ka bixi kartaa mise kama bixi kartaa waa qadiyad kale magta waxa laga yaabaa gabadhu inay awood u leedahay xilka ka baxi karto oo waxbarashadeeda iyo kartideeda laga yaabaa laakiin marka horeba shariicadu kuma wasiinba soo wax ikhtisaas leeyahay ma jiro oo ruux leeyahay oo loo gal yahay marka cidda ka hadlaysana oo rabtay in mas'aladan ka hadashana marka hore wuxuu ku qeydan yahay meesha uu ka hadlayo maxay tahay meesha uu ka hadlayo shariicada diinta islaamka dhexdeeda hadaa ka hadlayso waxa ku qeydan tahay nusuusta shariicada diinta islaamka hadduu ruux muslim ahayn dee reer galbeedku iska dhabaqso waxaa kaloo soo haray waxa la yiraahdo hadda mutaxida qaramada midoobay waxay leedahay muwaafiqdooda ay leedahay waxa kamid ah miisaaq la dhaho mabda la dhaho taqriir masir inay shucuubtu samaysan karaan inay aayahooda iyagu ka tashadaan halka marka maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalanaya waxa la yiraahdo qawaaniinta la dejinayo dawladaha lagu dhaqayo inay noqoto shay nisbiya oo macnaheedu tahay waxa lagu dhaqo reer galbeedka ku dhaqmaan iyo waxa anagu aan ku dhaqmo isku sina noqon karaan wax isku sina noqon karo haday gabadhu xagga madax ka noqon karto xaggan kama noqon karto sababta maxaa yeelay dhaqan baa jira diin baa jira
waxaa kaloo jira waxyaalo kaloo isku waafaqi karaa jira intaasiba kuma ogola marka haddii meel laga ogolyahay aad ka timid iyaga u noqo laakiin markii jawhar shariicada diinta islaamka laga hadlayo shariicada diinta islaamku waxay leedahay jawhar khaas u ah oo ka gooni ah jawharada kale ka gooni ah oo shuqul ku lahayn midda kale shucuubtu waxay iyagu dooratay qaadan karaan sama waxay doorataan bay qaadan karaan innaga markaan shacab muslima nahay doorashanadan xagee ka indilaaqdaa ka timaada shariicada diinta islaamka ka timaada ilaahay waxaan muxuu ka yiri rasuulkiisa muxuu ka yiri sallallahu alayhi wa sallam markaas dhaqaaqi kartaa laakiin haddaad tiraahdo waa la iyasayaa iyo hoos baa la ii dhigayaa iyo waxaan rabaa rag inaan la sintaan rabaayo dee waayahay nin noqo haddaad rabto inaad rag la simato nin noqo waa la soo wada hadda waa reer galbeedka waxaaba dhacdayba in dumarkii ay rag noqonayaan raggiina dumar noqonayaan waa takhriib nidaamka la takhriibinayo oo nidaamka la ilaalinayo wey taasina ma anfacayso shucuub muslim ma anfacayso waxaa soo haray dowladaha shucuubta muslimiinta u degsan khaasatan muslimiinta Soomaaliyeed dastuurka in lagu qoraa haweeney madax bay noqon kartaa waa jariima waa macsiyo waa kabiiro waa shariicada intisaamka meel looga dhaco bal fikradan waa fikrad khawaarijtu leedahay shalay tolaadada khawaarij ka soo horjeeday khawaarij ayaga qaba hooyooyinkood inay madax ka dhigtaan saan qisada hore u soo sheegnay bidaliil bay ku qabay wax daliil ku qabaan ma jiro marka ama dastuur degso ama wax kasta degsee marka hore waa in la ilaaliyo shacabka iyo dadka aan la khidaabayso oo la hadlayso aan wax u dejinayso yeeyihiin wax kasta iska dejin kartaa beesha caalamka kugu khasbo beesha caalamka waxa kuma khasbi karto ee awood dadnimadka horta ay qid quwaaka al-khafiya awoodda kugu jirta adigu soo bixi cid wax kugu khasbi karta ma jirto iyaga u qoran tahay muwaasiqda ugu qoran tahay inuu shucuubtu ka tashan karaan masiirkooda waxa la yiraahdaa qawaaniintuna shay nisbiye tahay macna nisbi waxa weeye wax sinaana adduunka qaanuun hal qaanuun oo siman ma jiro shariicada diinta islaamku iyada dadka simi karta shariicada diinta islaamka iyada simi karta ninka muslimka ah maanta adduunka meesha darafkiisa ugu dheer jira iyo adiga maanta meeshaan jooga isku wax hadii la idinka weydiiyo shariicada diinta islaamka isku waxaad ka sheegaysaan si hada masaa'isha ma ku aragteen marka dardaaranku wuxuu yahay ugu dambeyntii dardaaranku wuxuu yahay masalada ku dhamaatay haweenku xaq uma leh inay madax ka noqdaan dunida islaam wasiirna ra'iisul wasaarana ma noqon karaan wasiiru difaacna ma noqon karaan taasina waxa weeye wuxuu ilaahay u diiday ee waxay umadu ogolaan karta ma ahaan waxay umadu ogolaan karta ma aha walaa fikratu musaawaa aan ku ogolaan karin fikradda sinaanta ee beenta ah ilaa sinaanimo ma jirtaba meel kasta laga sinaado ma jirto hatta ummadan hatta isku mid ma aha isku aqli ma isku fakar ma isku dadnimo ma aha isku maal iyo isku xoolo ma aha sinaan ah meel kasta laga sinaado ma jirto sinaantu waa shay nisbiya waxa la yiraahdo mushaaraka jirto wuxuu la wadaagi karo laakiin wax la wada sinaan karo ma jirto marka waa in la ilaaliyaa ikhtisaaska macnaha waxa jirta nidaamkan hadda xadiidka waxyaalaha ikhtisaas marka hadda dawladda maamulayo kale ra'iisul wasaaruna waxyaalaha waxa jirta xaq u leeyahay madaxweynuhu xaq u leeyahay على هذا الأساس تقريبا للأفهام أنا فاهم سؤال ويننا رجل وحقوني لين هوينك وحقوني لين هذا جمعة وكله هوينك لقى مرة هذا هوينك عادة كل عكلة الصوم يسرع لمن لقى مرة هذه اللي المستوى هلا سميه لأنكم عادة كل عادة من قنص مش فساد بداعي وأخيرا فكرة إن هوينك ليرا madax baa laga dhigay dunida islaamka waxaas way soo qarreen way ka hadleen shariicada islaamka waxay tahay soo cadeeyeen inaga waxay mushkiladuna haysato xaaliyan waxa jirta gabdho sharaxayso ma oo Soomaaliyeed waxa laga yaabaa in aqoonba inay shariicadu u ogashahay marka munaafasadan ay tartan kan jira ee rag baa la tartamayaana munaafasad jirta ma baaha marka hore munaafasada waxay ka timaadaa inaad isku meel ba ka shaqeysaan isku meel ba kama shaqeysaan raguna wax gooni leeyihiin dumarku wax gooni leeyihiin ilaahay baa kala qaybiyay ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd gabadhana fasaalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil-qayb bima xafada Allah marka way kala duwan yihiin inaga marka shacabka muslimiinta waxa loo baahan yahay
dastuurkeena inaan ku qori karin waxyaalaha sidaas oo kale haduu jira xataa baa kala qeybiyay الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض gabadhana fasaalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqayb bima xafida Allah marka way kala duwan yihiin inaga marka shacabka muslimiinta waxa loo baahan yahay dastuurkeena inaan ku qori karin waxyaalaha sidaas oo kale haduu jira xataa iyo inaanan u kaalmayno cod support ahaan waxa laga yaabaa inay comment uga bixiso tiraahdo wallahi gabadhana way fiican tahay inay isku sharaxdo madaxtinimada dalka waana ku taageersanahay shariicada diinta islaamka macsiba taageeraysa mana ku banaana in macsiba taageerto واخيرا warkay waxaan ku soo gabagabeynayaa biidnillahi taala mas'alada khilaafka taagan yahay waa mas'alada wasiir ma noqon kartaa qaadi ma noqon kartaa xildhibaan ma noqon kartaa mas'aladaas jumhuurtu way diideen inaysan noqon karin qolyaha ogolna quyuud afar ay ku xireen afarta quyuud haday gabadhu ka soo baxdo wasiir way noqon kartaa qaadina way noqon kartaa xildhibaanna way noqon kartaa ayay yiraahdeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh